السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإذن وذا السلام دمانتينا halkaad igala socotaan waa Tibyaan Media iyo barnaamijkeeni aayad iyo qiso xalqadiisa labaad waxaan ku qaadanaynaa nin la yiraahdo Nadr ibn al-Harith oo kamid ahaa gaaladii Quraysheed ayaa wuxuu lahaan jiray gabar fanaanad ah oo heesta gabadhaas wuxuu sameyn jiray markii qof muslim ah uu rabo inuu islaamo oo muslimnimadana ama islaamnimada diinta inuu qaato ka labalabeynayo ma gashaa ma dhaaftaa ku jiro ayuu wuxuu soo diri jiray gabadhan heesta oo fanaanada ah markuu soo diro ayuu wuxuu dhihi jiray diinta islaamka maxaa u qaadanaysaa gabadhana kaaga fiican ha ku heesto isla baashaala tartiibtaada jawi degan maxaa diinta islaamka gelinayo dadka ay diinta islaamka ka celin jiray gabadhaas uu geen jiray oo heesi jirtay ilaahay wuxuu soo dejiyay subhanahu wa ta'ala wa minan nas man yashri lahu alhadith liyudilla an sabilillah dadka waxa kamid ah qof gadaayo lahu alhadith ibn mas'ud lahu alhadith wuxuu ku fasiray radiyallahu anhu heesaha qof heesaha lacag ka bixinayo oo dadku mashquulinaya jiro sabab liyudilla an sabilillah jidka ilaahay si loo dhumo oo macnaha oo jidka ilaahay aan la raacin meesha marka waxa ka cad in heesaha xaraam ay yihiin oo qof walba isku day in heesaha umada ku mashquuliyo aayadan soo galay oo ilaahay uu u balan qaaday cadaab daran inuu aakhir la kulmi doono aayadan marka min an-nas man yashri lahu al-hadith liyudilla an sabilillah waxay ku soo degatay ninkaasi Nadr ibn al-Harith oo gaalka ahaa oo gabadhaas fanaanada ahna dadka muslim islaami raba u geen jiray oo heesi jirtay haddaan ka gudubno aayadaasi aayada xigta waxay noqonaysaa muslimiinta saxaabada xilligooda markii soo degatay aayadii ahayd alladheena aamanuu walam yalbisuu iimaanahum bidulmin kuwa iimaanka laga helay iimaankoodana dulmi aanan ku darin ulaa'ika lahumul amnu wa hum muhtaduun kuwaasi waxay leeyihiin amni adduunyo iyo aakhiro waana hanuunsan yihiin saxaabadii marka waa mashquuleen arintii la murugeen waxay dhaheen anaga iimaan waan leenahay laakiin qof maanta bani aadan oo adduunkan joogo oo dulmi aan ka dhicin ma jiro adii oo yartahay dulmi waxaa jirta oo nafsadaada aad dulminaysid oo cibaadada ilaahay aad ka tagaysid marka qaarkood aad ka mashquulaysid saxaabadii ayaga ku mashquulsan arintaasi dulmigan maxaa laga wadaa aayadii ku mashquuleen إلهي يسود سبحانه وتعالى وإذ قال لقمان لابنه لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم لقمان أسقو ويلكي سلطة لنا يوحيري ويلكي جيو إلهي وحبه لبداجنين إلهي شركي هالكينين إلهي عبادتيسا خفك لها لبداجنين ما حد عي إن الشرك لظلم عظيم ظلم إلهي وكشاق آيات داس oo saxaabada ay ku wareereen ee micnihiisa fahmi waayaan ilaahay aayad kale ayuu fasiray oo ah inna shirka la dhulmun azim shirkiga oo dhulmiga lagu sheegay aayadaasi waa shirkiga ma aha marka qofka iimaan laga helo oo shirki laga waayo waa marka adoo iimaan laga helay haddana hadii shirki laga helo dhiba ku jirta laakiin aayaddu waxay balan qaadaysaa qofkii iimaan laga helay haddana iimaankiisa dhulmi aan ku darin dhulmigaas maxaa waaye waa shirkiga inna shirka la dhulmun azim shirkiga waa dhulmi aad iyo aad u weyn marka aayadani oo ah wa id qala luqman libnihi wa huwa ya'iduhu waxay ku soo degatay sabab nuzuulkeeda iyo qisada ku soo degatay waxay tahay muslimiinta oo ku wareereen aayadan dheheyso alladheena aamanuu ولم يلبسوا إيمانهم بظلم ظلم جالس كبرارين إلهي سبحانه وتعالى آيات كلا أيوه فسري هذا مرك القرآن الكريم وقرآن آتي معان بدن محايا لي آيات والباء آخرنا إنه سوى كسود دقتي سوى الآن مسود دقنيسو هذا البرنامج كاني إن لسعتان رجينا يا محايا لي وبرنامج آدي قروح بدن أو طلقلي إن آياتها سي قار كمد عن سوق هذا نوكو ومعان كبدن قصوين كودا dadkan aan la soo wadaagno maadaama quraanka meeshii laga galaba uu macyahay uu yahay wax aad qalbiga u roon marka labadaas aayad baan ku soo gabagabeynayna xalqadeenan wabillahi tawfiiq wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh